ويقانا يعني عدوغا وحو يقانا ماشا وكاغا هرمريا ويقانا ماشا وكاغا هرمريا وآدن ككعين هدي لغامدو ويقانا عدو وماشا شالانا لغا ترقي وانا ماشا شالي مويانا دراد انتان مقالي سجود لغا علامدي حالي أنكم موسناويني وليش الندي وسجود لغا علامدي أدبانا وحنا وليشاسنا وحا إسكالا دولة بنتلا habacsananta iyo in wax soo socdo oo dhib ah oo la og yahay in la dhowrto ay dhacdayna waa shacabka Puntland mar dambe inay dhacdana ma rajayn laga weerarayaa dalka Suudaan meel baa fadhiistay qofka waxaan qorayaa waayo waaba deegaankaas halkay waxay dadkiisu cunayaan uga soo degaan ee dhulbahantay waa Boosaaso sidee uu oran karaa xuutiintu ha duqeeyaan halka la weeraro arrinta nooca khatarta inta leeg leh cadifada inta leeg maxaa ka keenay dadka nooca waxa qorayeenaadeen waxyaabo la yaaba moogti nabiilow aqligaagu ma qaadanayo waxyaabaha socda anigu ma garanayo waxaa jirtay maahmaah ahayd dameero hooyadeed isku halayn bay dabada uga nuugtaa anigu ma garanayo dee siday caqli u leeyihiin dadka waxaa qoraya oo reer laasacaanoodka ma garanayo siday caqli u leeyihiin mana garanayo siday bini aadan fakraya u yihiin boosaaso iyo haddii garacad laga xirto hargeysana awal ka xirnay talow maxalima dheertay daaqayaan iyo yariska ma taasay xoolaha la cuni doonaan ma garanayo waxay dadkaasu siday wax ku wadaan ma garanayo kuso danteeday anigu hadda waxaan qabaa dadka reer Puntland gabi ahaanna aan qabnaa anagu dad waxaanu nahay raba inay danahooda u kumaan qorshahooda maalinimo iyo mataqaanaaye wanaagooda kale ay u kumaan dad waxaanu nahay raba inay dhaayahooda ku daawadaan dhulkooda oo nabada ciidankooda oo qurux badan xuduudahooda oo xiran iyo horumar uu dhulkoodu samaynayo iyo dowladooda oo fulinaysa qorshayaal horumar ah fulinaysa ayaan doonaynaa ma doonayno anagu 24 saac inaanu soo fakirnaano oo dad aan nolol rabin anagu aanu u maaragtay u baaba'ano ma doonayno dee ha xirato dowladdu anaga xirta xuduudkooda ma rabaan nolol nabiilow runta haddaan kuu sheegana idinka idiin soo socdaan annagay waxay rabaan marka inay tii idinka waagii idinka bahalkii gaartay laasacaanoo dagaalkii ka dhacay tii oo kale waxay rabaan inay Puntland haddana ku sameeyaan idinka hadday idin yabaanaan tabtaasoo kale wey niyow marka hawshaasu hawl dhanna u dhacaysa maaha hawl dhan u dhacaysa ma aha idinkana waa idinku dhib annagana waa nugu dhib ayaguna dhib bay ku jiraan inay ka baxaanna ma raba si allaaleysa adduunya la sii la yeelana lama yaqaan waana waxyaabaha yaab kale oo ilaa iyo hadda Soomaalida ku cusub weeyaan qof bila aadana oo ku wanaajiyay inaadeer imtixaankii 2023 ee dowladda Puntland waxaa laga dhigay goobo geli aniga konfor baan galay oo Puntland waligay dowladda Soomaaliyeed imtixaan ay leedahay iyo risaaqad ay leedahay maana arag waana sababaha anigu aan Puntland ugu dhaganahay xaq bay igu leedahay waa i korisay waxbay i badhay waa ku noolahay waa ku shaqaystaa intaasan kula ekaaday dadkana waa ugu qurux badan waa dhulkaygi cid xun baana ma garanayo anigu Soomaalida la raadinayo oo ana walgani Allahna xumaan mooyaane ana wanaag ka arag macnaheedu ma fahmin si kastoo noqoto imtixaankaas waxaa laga dhigay imtixaan basiid ah oo goobo geli ah hal gabar anaga noo gashay hal gabar hawadaasay gashay mixno waxay heshay waxbarasho oo lacag la'aanada dabadda waayo wuxuu ahaa wax aad u fudud sidaa waxa looga dhigay imtixaanka waa dadka reer laasacaano dartood imtixaankii shahaadiga ahaa ee sideedaadka iyo foonfoorka ahaa bini aadan loo bedelay dartood abid waxaa la arkay reer laasacaano waxay hadda noogu abaalgudeenna waad arkaysaa ay iyo aflagaado iyo canjalafayn iyo halaag iyo wax daran iyo wax daayiraad iyo qof kaste oo adiga ku neceb adduunka ma la arkay kabdada bariiska oo aniga madaxa ii taala oo aan maanta dabka ku shubtay adaan kaa keena yah cambuulada caawa dabka ii saaranna adaan kaa keena waana ku caayaya adaan kugu caweynaya weliba waxaan ku dhahayaa deganaantan kaala dagaalamaya abid Soomaali kale oo kelmadda noocaas isticmaashay ma jirin Soomaali kelmadda noocaas isticmaashay bal hala keeno oo isu isticmaalaysa ayada oo dhahaysa waxaan garab soo siinaynaa bahalka tan kale hadda kelmaddan oo su'aashan ah waxay dhaheen Boosaaso laga weeraraya Suudaan qorshahaas Turki baa watay xasan bay u soo dhiibteen cidda u fulisayna waa reer laasacaano waa saas marka ayagu waa fuliyayaal toos mar walba
ilaahay khayr ha ka dhigo walaalle alaa iyo kulli xaal waxaan kusoo gabagabeynaya laabudda puntland inay difaacato dadkeeda laabudda taasaa ah shalay waxaa aad dismuraal loogu noqday qof walboo arkay uu ku noqday hooyooyinkii calanka watay oo aad arkaysay oo puntland calankeeda watay puntland noolaata lahaa markii shalay dagaalka lagu qaaday wiilashoodana food laga wada calaamadiyey horay ugu dhinteen wiilashooda ayaga oo mataqaanaaye oo madi ah waad arkayseen wiilal walaalo ah oo saraakiil ah oo dagaalka calbiskaad ku dhimanayeen waxaad arkayseen magaalada keliya 6 tiro oo ari ah magaalada keliya oo 6 tiro oo ari ah hal marsab soo gelisay oo geysay calmiskaad halka magaalo oo samaysay baranbay ah waana magaalada shala xasan sheekh maxamuud weeraray waana magaalada ay puntland ka nooshahay ma dhicin garowe waa caasimad gaalkacyo burtunloo kale waxaa la dhahaa waa magaalada ugu tuulooyinka badan ama ugu dadka shacabka ah badan baa la dhahaa magaalada burtunle boosaaso oo ishii puntland marna soomaali u ahaan jirtay garacad oo maanta tekad caalamiya ay ku taalo ma dhicin hal magaalo ah oo 6 tiro oo ariya oo maquuqan hal mara soo socday oo waddo qaatay halka magaalo samaysay waa baran waana magaalada shala la weeraray waa yaqaanaa yani cadowgaagu wuxuu yaqaanaa meesha uu kaaga hormarayo waa yaqaanaa meesha uu kaaga hormarayo oo aadan ka kacayn haddii lagaa mudo waa yaqaanaa cadowga waa meesha shala nalaga turqay waana meesha shalay mooyaane doraad intaan maqalnay sujuudda laga calaamadiyo xalay aan ku muusanaa weynay wiilashanadii oo sujuudda laga calaamadiyey aad baan uga xumaa dhaliishaasna waxaa iskale dowladda puntland habacsanaanta iyo in wax soo socdo oo dhib ah oo la og yahay in la dhowrta ay dhacdayna waa shacabka puntland mar dambe inay dhacdana ma rajayno caawana maantana waxaa shir u fariistay dhaqankii barameed nimankii ishor fadhiyeyna waa la kala qaaday insha allahu tacaalana walaala khayr bay kusoo dhammaanaysaa nin baase waxaa laga sheegay sigaaradii badda ku kaaday dhinaceedii warisay xasan sheekh maxamuud iyo dhammaan waxa ka daba ambuulan wallaahi puntland gudaheeda waa sigaaradii badda ku kaaday dhinaceedii warisay waayo qof reer puntland oo aan askari ahayn naguma jiro anaga qof reer puntland oo aan shirdoon ahayn naguma jiro qof reer puntland oo dhiiggiisu uusa dhiiggii shariifaad ahayn naguma jiro dhulka iyaguna wuxuu uga duwanaaday gebi ahaanba geyiga soomaalida oo uga qurux badan yahay wax kale ma ahane waa kartida anagu aan leenahay xasan sheekh maxamuudna waa iska cilmaynaa waxaase ka liita kuwa kabaha u wada xasan waxaa ka liita xasan oo aynu ognahay inuu mowtaadkiisii intuu dadkiisa u diray uu yiri soo fagta intay jawaano ku soo qaadeen ka canshuuray haddana magaaladii muqdisho